Ma ogtahay in Yemen laba dowladood ka dhalanayso, mase ogtahay inay sii hayso waddadii Yugoslaafiya ee kala burburka? Soo dhowaada. Waxaynu tabinteennan ku dul istaagaynaa xiisadda cusub ee u dhexaysa Sacuudiga iyo Imaaraadka ee dhulka Yemen. Waxaynu wada falanqayn doonnaa daqiiqadaha soo socda 8 qodob oo ku gudaaman dhacdooyinkii dhacay maalinkii shalay ahaa, kuwaasoo inaga siinaya sawir halka ay wax u socdaan iyo jihada cusub ee ay qaaday dowladda Yemen. Waxaynu wada falanqayn doonnaa bayaankii Sacuudiga, amniga gobolka oo halis daaqaya, codsiga dowladda Yemen, cadaadiska Imaaraadka, duqeyntii Mukalla, doorka golaha ku-meel-gaarka ah ee koonfureed ee loo soo gaabiyey STC, dadaalladii diblomaasiyadeed ee fashilmay, hadalkii ugu adkaa ee Riyaad, iyo jawaabtii uu bixiyey Imaaraadku. Yemen waa dal dagaal ka daalay, balse weli ku dhex jira isjiid-jiid siyaasadeed iyo mid milatari oo ay wadaan quwadaha gobolka. Talaadadii dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay si rasmi ah ugu baaqday Imaaraadka Carabta inay si togan uga jawaabaan codsi ka yimid Jamhuuriyadda Yemen, kaasoo dalbanaya in dhammaan ciidamada Imaaraadku ay dalka Yemen uga baxaan 24 saac gudahood. Baaqan uma iman si kedis ah, balse wuxuu daba socday xiisadda sii xoogaysanaysay ee ka dhalatay dhaqdhaqaaqyada milatari ee Imaaraadku taageerayey, kuwaasoo ka dhacay xuduudda koonfureed ee Sacuudiga, gaar ahaana gobollada Xadramuut iyo Almahra. Qodobka koowaad aynu dul istaagayna waa bayaankii Sacuudiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa bayaan adag soo saartay iyadoo muujisay niyad-jab ay ka qabto waxay ugu yeertay ficillo ay qaaday dowlad walaal ah, Imaaraadka Carabta, kuwaasoo cadaadis ku saaray bay yidhaahdeen ciidamada golaha ku-meel-gaarka ah ee koonfureed inay fuliyaan howlgallo milatari oo ka dhacay xuduudda koonfureed ee boqortooyada. Riyaad waxay si cad u sheegtay in tallaabooyinkaasi ay u aragta halis toos ah oo ku wajahan amniga qaranka Sacuudiga, isla markaana wiiqaya amniga iyo xasilloonida Yemen. Qodobka labaad, khatarta qaranka iyo amniga gobolka oo halis daaqaya. Bayaanka Sacuudigu wuxuu ficilada Imaaraadka ku tilmaamay kuwo aad u khatar badan, aan waafaqsanayn mabaadi'da isbahaysiga, ka hor imaanaya hadafkii lagu dhisay isbahaysiga dib u soo celinta sharciyadda Yemen. Sacuudigu wuxuu xusay in isbahaysiga Carabta loo sameeyey in Yemen loo soo celiyo dowlad sharci ah, balse aysan marnaba ogolaan karin in xubin ka tirsan isbahaysiga ay taageerto dhaqdhaqaaqyo carqaladaynaya yoolkaas. Codsiga Yemen iyo cadaadiska Imaaraadka. Boqortooyada Sacuudiga waxay ku celisay muhiimadda ay leedahay in Imaaraadku ay aqbalaan codsiga rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Yemen, inay dhammaan ciidamadooda uga baxaan Yemen 24 saac gudahood, inay joojiyaan taageero kasta oo milatari ama dhaqaale oo ay siinayaan koox kasta oo Yemen ka jirta. Wasaaraddu waxay saacad u tiri faragelin kasta oo noocaas ah waxay sii hurinaysaa colaadda, isla markaana waxay khatar ku tahay mustaqbalka Yemen. Duqeyntii Mukalla iyo kacdoonkii xiisadda. Xiisaddan ayaa cirka isku shareertay kadib markii Sacuudi Carabiya ay duqeysay dekedda ku taalla magaalada Mukalla ee koonfurta dalka Yemen. Duqeynta ayaa lagu beegsaday hub casri ah, gaadiid gaashaaman, iyo qalab isgaarsiimeed. Sacuudigu wuxuu sheegay in hubkaasi lagu soo geliyey Yemen sifo sharci darro ah, iyadoo lagu taageerayay ciidamada STC, taasoo ay soo geliyeen buu yidhi Imaaraadka Carabta. Tani waxay keentay in khilaafkii hore u qarsoonaa uu noqdo mid fagaara ah, bannaanka ugu soo baxa, oo cid kasta ay arki karto. Qodobka shanaad, doorka golaha ku-meel-gaarka ah ee koonfureed ee STC loo yaqaano. Khilaafkani waxaa xudun u ah golaha ku-meel-gaarka ah ee koonfureed ee STC oo ah koox hubaysan oo doonaysa inay la wareegto gacan ku haynta gobollada koonfureed, inay xukunto magaalooyinka Xadramuut, Almahra iyo Shabwa, inay xoojiso qorshaha kala goynta koonfurta Yemen. Ciidamada STC ayaa bishan bilaabay weeraro ballaaran, kuwaas oo horseeday isku dhacyo toos ah oo ay la galeen ciidamo daacad u ah dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero. Qodobka lixaad, dadaaladii diblomaasiyadeed ee fashilmay. Ka hor intaysan arrimuhu heerkan gaarin, Sacuudigu wuxuu waday wadahadallo diblomaasiyadeed, cadaadis siyaasadeed iyo isku dayo xasilin si STC looga dhaadhiciyo inay ka baxaan gobollada ay la wareegeen oo ay dib ugu soo celiyaan maamulka dowladda dhexe ee Yemen. Laakiin dadaaladaasi way fashilmeen, taasoo keentay in Sacuudigu u arko in la gaaray xuduud aan la sii dulqaadan karaynin. Hadalkii ugu adkaa ee Riyaad ka soo baxay. Riyaad waxay si rasmi ah u sheegtay howlgallada milatari ee ka socda xuduudaha koonfureed ee boqortooyada oo Imaaraadku taageerayaan inay tahay khatar toos ah oo ku wajahan amniga qaranka iyo mid ka dhan ah xasilloonida Yemen. Maxamed bin Salmaan, oo ah boqorka boqortooyada Sacuudiga, waxa uu sheegay in amniga qaranka Sacuudigu uu yahay khad ahmar ama layn guduudan. Sidoo kale waxay ku celisay in tallaabooyinka Imaaraadku ay yihiin kuwo aad khatar u ah, kuwo aan waafaqsanayn mabaadi'da isbahaysiga iyo kuwo sii hurinaya colaadda Yemen. Qodobka 8aad, jawaabta Imaaraadka. Dhankooda, Imaaraadka Carabtu waxay sheegeen inay bilaabeen ka bixitaanka ciidamadooda ee dalka Yemen, inay daadgureeyeen badi ciidamadooda ayna la baxayaan inta hadhay, inay tallaabadan u qaadeen ayay sheegeen si ay ugu hoggaansamaan dalabkii ka yimid dowladda Yemen. Waxay diideen eedeemihii ku saabsanaa faragelinta gudaha Yemen. Se yeeshee, Sacuudigu wuxuu codsaday in ka bixitaanka keliya uusan ku filnayn, balse loo baahan yahay in la joojiyo taageero kasta oo toos ah ama dad. Xiisadda u dhexaysa Sacuudiga iyo Imaaraadka ee Yemen ka taagan waxay muujinaysaa kala aragti duwanaan qoto dheer oo ku saabsan mustaqbalka dalka Yemen. Sacuudigu wuxuu rabaa Yemen midaysan oo xasilloon. Imaaraadkuna wuxuu u muuqdaa mid leh dana gaar ah, kaasoo kale koonfurta Yemen iyo awooddeeda istiraatiijiga ah, haddii aan la helin xal wada hadal
oo ka yimaada labada dhan. Yemen waxay halis ugu jirtaa inay noqoto koob lagu loolamo oo ay ku loolamaan dana shisheeye halkii ay noqon lahayd dal ka soo bogsada dagaalada la degay. Juqraafi ayaad nagala socotaan.